بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدى سوماليات وين سلامي وانا نسود وين هيا ولا عليه مع السوماليات محاكي جرا مانتي وحكي جرا كعدون شعب سوماليات ايا كجرا مقالة مقدشة شعبكي انتي وحقرت كاهيد انت اقونت لهيد انتي وحفاهميسي انت نباتة فهمي كرت مقالة قبل كبنادر كتاقن horta waa soo wada bannaan baxeen welina bannaan baxaan bannaan bax kala go'i doona ma ahan maxamed cabdulaahi farmaajo la yiri xalay ma una seexanin qalqal ayuu ku waxeeyey waxa kale oo saaki soo yeerahaya villa soomaaliya inay joogaan elitrey marka waxa la yaab leh waxa la yiri nin asxaan fala waa la arkay laakiin nin wanaagii loo falay guday weligeed lama sheegin abaalka dhacana adduunweynaha gaal iyo muslim ayay ku dhex jirtaa marka waxaan rabaa inaan inii sheego maxaa ka jira elitreyga la geeyey villa soomaaliya waxaa ka jira elitrey aada u xun ciidamo elitrey iyo kofi gaduud baa la geeyey marka waxaan rabaa inaan nila socodsiiyo muxuu ka damacsan yahay waddanka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ka go-an inuu qalqal geliyo dir iyo daarood iyo hawiye inuuna u kala harin waxaan reer diini ka ahayn brobagandada beenta heesaha isku maaragtay qabiilka ah oo isku duuduubka oo wadaninimo aynan ahayn oo soomaalinimada ayna ka gooneen waa arkaynaa marka maxaa ka jira waxa ka jira heesaha investment baa la geliyey lacag baa la geliyey waa naqanaa waa reer london waa dad maaragtay mashaqaystayaal ah oo laakiin jecel inay turuufo wax ku helaan taas annaka og markaan ka tagno fanaaniinta maaragtay mareexaan oo isku dayeysa inay wadani iska dhigaan oo wadanimadooda soconayno etoobiya carabka kala cararahaya waxaan arkaa wax jira inaynan ahayn marka etoobiya waxaan leeyahay soomaaliya dhibaatada soomaaliya sanadkan ku dhacday waxaa ka dambeeya waa dowladda etoobiya iyo abiy axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo inay qalqal magaalada soomaaliya ay geliyaan oo siyaasadii soomaaliyeed uu hoosgeeyo aqoon daradiisa inuu etoobiya iyo fahad yaasiin uu hoosgeeyo waana wax laga dhinto marka maxaa la damacsan yahay waxaa la iskugu tagayaa garowe saan xalay sheegaba soomahan intii soomaali marka mid baan rabaa halkaan intaanan arrimaha siyaasadda gelin inaan ka hadlo aan u sheego shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed oo puntland degan special waqooyiga gaalkacyo iyo kuwa puntland deganba waxaan u sheegahayaa dhalinyarada dollarka iyo half dollarka la siinahayo oo musawirka siciidani soo ridaysa anigu waxaan leeyahay kawaana qaata ay ka fiirsada sababtaan inay leeyahayna waxaan ogahay dhibaatada hawiyaha degan magaalada muqdisho ama gobolada hawiye haysata mid ka daran ayaa in ku dhici lahayd haddii siciidani uuna u istaagi lahayn puntland marka waxaan leeyahay warniyo waxaan leeyahay waddankan waa 4 sano marka waxaan ku bogaadinahayaa dhalinyarada puntland ma waxay rabaan dhaawac iyo xabsi iyo baahi inay galaan war maxamed cabdulaahi farmaajo nimanka dhulbahanto uu soo adeegsanayo oo ma aragtay uu ku barkay waa la adeegsanayaa dhulbahanto badan baa jira dhulbahantoo dhanna waxaa lama qaban milyaaya dhulbahanta aan naqaanaa oo kasoo horjeeda oo nacab dhibaatada iyo magaxumada iyo bahdilka oo cidda dhulbahanto oo sharafta iyo wanaagga naga mudan weligeed lama maqal dhibaatadeeda dadku ciidan bay ahaayeen inkay dowladdii maxamed siyaad barre wixii u jabay ha iskaga jabaan is up to you daaroodku mareexaan keliya maahan daarood waa weyn yahay ilaah baa abuuray soomaali maaragtay dadweynaha soomaaliyeed oo waaweyn ayay ka mid yihiin marka dhalinyarada puntland degan waxaan leeyahay be careful waa inaad ka ahaataan dhulkiina ha baabi'inina nabadda aad haysataan ha baabi'inina annaka iyo magaalo madaxdii ayaa nabad la-aan u ka jirtaa oo dadkii guryaha loogu dhacaya oo dadkii la dilahaya oo dadkii la kufsanahaya oo dadka dabaqya laga soo ridahaya war waxaan leeyahay siciidani danihiinuu ka shaqaynaya businesskiina iyo aayihiinuu ka shaqaynaya oo igu wallaahay oo aan ognahay annaku waxba lama socotaan wax ninkaanu asaa iska bacbishtaroo lacagtiisa haystay owalba siyaasadana shaqo u kulaha ma leh laakiin inuu puntland wuxuu qabto ayuu siyaasadda maalintii madaxweyne laga dhigay siciidani farmaajo wuxuu u istaagay sow kadab uu kabtiisa u goyn lahaa ayuu u istaagay marka dhalinyarada la adeegsanaya oo nimanka nolosha ka dhacay oo soomaalinimadu aynan ku dheeran waxaad ogaataan reer puntland oo haddii soomaalinimada aad ka tagtaan oo ninka maanta ini daafacaya oo soomaali oo dhan u istaagay oo farmaajo gooni inta ula hadlay arkay musuqa iyo maasuqa oo wada uu ka diiday siciidani uu yiri kulama qaabili karo nin soomaaliyeed baan ahay diirkaygana haddaan daarood ahay ima siinahayo waxa aad rabto inaan sameeyo ma samayn kara madaxweyne uu yiri waa gooni tolnimadu laakiin musuqa iyo dhibaatada soomaaliya aad ku wada inaad hoosgeysa etoobiya anaku dooni mayno marka anigu waxaan ahay qof hooyaa waxaan la hadlahayaa dhalinyarada soomaaliyeed oo puntland degan oo la dagaalamaysa masawirka ku dhegan derbiga war waxaan ku leeyahay
farmaajo yuunayn adeegsan oo odayaal wada calool burbuuran oo caado qaadata oo nolosha ka dhacay oo xaaraanta ku noolaa inayni dhahaan masawirka siciidani ha la soo ridana waa ka xunnahay waxaan leeyahay waqooyiga gaalkacyood iyo puntlandba war ka fiirsada war maanta waxaad tihiin waddan aan afka ku wada hayno oo lagu nagaado oo waxaan leenahay nabaddu ay ka taagan tahay war soomaaliya waa dhaantaan inteeda kale dhib kasta oo ka jira magaalada gudaheeda haddana waa dhaantaan dowlad goboleedyada kale waa dhaantaan wixiini waa kala socdaan diyaaradihiini waa soo deganahayaan arka galmudug oo daris kula ah wax socda male al-shabaab baa dadkii dhammaynahaya ninkii qorqor la dhahayna wuxuu ka qabanahaya male marka asaa keena ciidamadii daafici lahaa galmudugna asaa ka saaray marka dembiga yaa iskale dana uu leeyahay ayuu uga saaray qorqor galmudug maxaa la yidhaha marka dhallinyarada puntland aan la hadlahaya maandhooyin oo dhallinyaro yaryar baa tihiin yaynila adeegsanin niman farmaajo qandaraas ka soo qaatay iyoynayna adeegsanin iyaynan madaxweynihiina siciidani in ku dirin siciidani waa aabe saa adigu aabbe u leedahay ayuu asan owlaad u dhalay waryaa lagugu dirin siyaasadda farmaajo weeyaan waxaa qalalaaska iyo musuqa ka wada maanta puntland anigu taasaan leeyahay dhallinyarada reer puntland waxaan leeyahay farmaajaha dhegaysanina waddanka soomaaliya hore u kici doonaa wuu socon doonaa adduunyada qurbahan aan joogno annaka waddan aana dhibaato soo marin oo naagahooda aana la kufsan gaaladaad arkaysa guryaha habeenkii loogu geli jiray yay ahaayeen dadka u badnaa inay wax kufsadaan jarmalkay ahaayeen marka waxaan ku leeyahay walaalayaal joojiya waad ogtiin wixii ku dhacay Itaaliya wixii ku dhacay waad ogtiin Jarmal dhexdeeda wixii ku dhacay Yurub waad ogtiin wixii ku dhacay Ingiriiska qof aanan dhibaato soo marin wadamada maanta degan dhigooda waxa u soo horay dhalinyaradii xoreysay oo da'dii noo kala jirtay dhalinyarada waxa loo baahan yahay kalgi Talyan markay arkaan inay ka soo horjeedsadaan maanta wadanka musuqmaasuq uu ka taagan yahay oo dhaqaalihii wadanka oo personal wuxuu asagu dana ka leeyahay farmaajo uu saaray oo dhibaato dadkii dilahayo oo gabdhihii la fuulahayo oo dabqiyada laga soo tuurahayo oo ciidamadii la xabadaynayo waxaan leeyahay wanaag baad ku taagan tihiin reer Puntland oo waxaan leeyahay wanaagga aad leedihiin dhalinyarada yaryar oo odayaasha caada qaatayaasha wada caloosha weyn leh oo farmaajo u shaqeeya oo Puntland jooga ummadda islaameed oo reer Puntland yeena banay shacabka Puntland waa inay ka dhiidhiyaan odayaasha lacagta ka soo qaatay farmaajo oo raba inay qarribaan Puntland war wanaag baad haysataan wanaagiina ku taagnaada war kaligi Talyan waa la iska qabanaya farmaajo ninoo wuxuu galay male wadooyinka maanta lagu faanahayo Muqdisho farmaajo maalintooyin waa la wada dhisay Xasan Sheekh Maxamuud aa dhisay everybody he know afar dhagax baa taale maantana corner to corner gobolka Banaadir wuu wada xiray markaas lagu leeyahay dariiqyada dhisay ma farmaajo dariiq dhisay TF gooye iyo Muqdisho isku xireysay oo haafka dhisneed ayuu dhameystiri waayay inta yareed oo kiiloomitirka ahayo lacagti qaatay tii ma aragtay balcad iyo Muqdisho isku xiri lahayd ayay lacagtoodii qaateen hal dariiq oo Muqdisho ka dhisay ma jirto ninku waa qaa'inul wadan waa kaligi Talyan dawladda Itoobiya ka dambaysa waxaan oo dhan asaga wuxuu yiri anigu wadankayga waa baadiyay baabi'i Soomaaliya 30 sano soo rafanaysay madaxay hadda kor u soo qaaday waxaan leeyahay dhalinyarada Puntland yaa inuu ku dirin siciidani nin calool weynaa oo xaraan ku noolaa oo Muqdisho ka yimid oo reer Puntland inta lacag la soo siiyay la yiri ciyaalka u dir masawirada ay gogoynaysaan joojiya waa inaan ka soo wada horjeednaa kaligi Talyaha Itoobiya hoosgeeyay oo Itoobiya u shaqeeya oo ciidamada Eritrea noo soo galiyay Eritrea ninka madaxweynaha maanta haysta Soomaaliya uu joogi jiro wax ka bartay asaga iyo kii Xayla Maryam la dhigi kii Itoobiyaanka ah oo dhinto dhacay Muqdisho ku noolaayeen dadkii siyaad barro wax soo baray ahaayeen maantana waxay rabaan Soomaaliya inay baabi'iyaan ayagoo briskooda soo cunay iyo ma aragtay dhulkooda soo seexday marka waxaan leeyahay Soomaali waa inay isku duuban tahay marka nin kaligi Talyan uu yahay waa inaan isku duubannaa iska qabannaana shalay annaka soo dhaweeyna maantana waa inaan iska qabannaa waxaan leeyahay galmudug gaalkacyo haddaadan kicin waxa uu kula damacsan yahay qorqor maskaxdaada diidaysa reality-ga markaan kuu sheego cadaadad dhexdeeda reexaaji ayuu wuxuu ka abuuray dab anaana runta idin sheegayo waxa uu diiday in la magacaabo gobolada aan u baahannahay oo city councilorka in laga dhiga loo baahan yahay waa cadow oo cidda sacad u qaba weeyaan qorqor haddaad iska qaban weydaan dhalinyaradiina madaxa soo wada taagta qorqorna madaxa in kaga istaagaya goberna sacad suuqa waa ka baxaysa anaana runta idin sheegayo qorqor intaas oo ka dagaalamaya waxa uu diiday city councilyada mudug ay leedahay oo waa wiilkii duduble muxuu u qaatay shahaado sharafti loogu sameeyay qorqor aniga naba eba ma aaminahayo anigu ninka aamin waxaan u aqaanaa markuu intuu dhaxda xirto oo uu labisto oo jeans xirto oo qorigiisa qaato uu yiraahdo gobolkaygaan daafacaya gobolkaygaan wuxuu qabanaya madaxweynaha dadka iyo deegaanka anigu aan leeyahay ugu dirahaya muxuu yahay ma ahan asagu waa maxaan cunaa maxaan bangiga dhigtaa maxaan ku baac mushtaraa biri haddii la eriyo intaas keliya u taagan yahay anigu waa arkaynaa Soomaali waa diiday farmaajo dantaana ku kalifaysa qorqor inuu bedelo ID-ga uu wato reality-ga ana idin sheegay kaligi Talyana wadanka waa laga qabanaya
adduuweynahana way ogyihiin farmaajo ilaahay ballankiis waxaan ku qaadnay inaan villa soomaaliya ugu galno marka waxaan rabaa ciddaan dhulbahanto aan jeclahay inaan la hadlo dhulbahantow iyo xabadda iskaga kiin dhigin farmaajo wanaag iyo sharafoo inii haya ma jirto maxamed siyaad barraa xabad iskaga kiin dhigay maantana adinkana xabadda inuu iskaga kiin dhigo rabaa anigu winow inaad dad aad u degan oo qiimo leh oo fadhiya oo wanaagsan inaad tihiin ciddiina dhulbahanto winow markay garaadkii dhulbahanta allah u naxariisto dhinta eedadeedu uu qabay faadma ugaas marka waxaan leeyahay war is ilaaliye yuu iskaga kiin dhigin yah nin la diri karo yuuna iskaga kiin dhigin realitygan inii sheegahaya waa ina becarefulka aataan dhulbahanta wuxuu noqday nin kastoo mareexaan oo soomaaliya wandhay ka soo baxaba inuu xabadda iskaga dhigo dhimashada asaga uu ka cararayo farmaajo oo maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka cararayo adigoo dhulbahantaa kuu dhigahayo abtinimo maahan kuraastuna saas ma ahaanayso xijaar gacan baa lagu qabanaya anaa runta inii sheegahaya waa killerman dowladdii maxamed siyaad barre hawiye badan uu qabay waa loo aamusnaa maantana meydadka hawiye ninka qariyey annaga waa noo xisaabsan yihin xijaar maxkamad baan soo saaraynaa farmaajowna la baxaya realitygan inii sheegaya waddanku saan ma sii ahaanayo bliis waxaan leeyahay kabdhaan hala noqdo mudaharaadyada hala wado farmaajo villa soomaaliya ha loogu tago fahad yaasiinna waxaan idinka codsanhayaa ummadda soomaaliyeed gacan inaad ku qabataan nin kasta oo siyaasiya oo gobonamadoona waa in layskugu tagaa oo go-aan laga gaaraa oo la sameeyaa oon loo dhaafin farmaajo waxa uu rabo waa inaad ka hortagtaan waxaadna uga hortagi kartaan adinkoo geeskiisa ka abaabula dowlad cusub asagana far iyo suul intaad kusoo qabataan maxkamad saara markii farmaajo soomaaliya shalay markuu soo baxaayana afmiinshaar u ahaa maantana inuu tuugyo isku kaaya sheego qaa'inul waddan uu yoona wadani soomaaliyeed oonu ahayn annagoo wuxuu damcay etoobiya inuu noosgoy winaba eva soomaaliya waa waddan calinkiisu taagan yahay ma ka gadmaysa etoobiya waa etoobiya cuqbadii soomaaliya ku dhacda ilaahayna waxaan ka baryay inaynan 30 sano ayna lugaha dhulka dhigin runtaa inii sheegaya abiy axmed wuxuu ugu talagalay etoobiya inuu kala reebo inuu baabi'iyo inuu maaragta dad yaroo kooban uu kasoo reebo on baahi qabin realitygan inii sheegaya wuxuu ka cararay waa doorashada asaga maanshowgii uu rabay farmaajo waa ka hortagnay asaga waa ka horeynaa qurbaha waxa jooga mutacalimiin farmaajo ka horeysa farmaajo waa an education realitygan inii sheegaya waxyaalahan sida soomaaliya cali shidaaya laga soo gataa iyo bakaari laleey oo kale ayuu maraykanka la yimid waa markaa runta inii sheego macalinkii jaamacaddii uu iska qoray may fahanteen oo uu fadhiistay ayaan haynaa ilaa hadda investigationkiisiyaa socda maraykan marka waxaan leeyahay be careful hala noqdo cidda hawiyena waxaan leeyahay hawiye waxaan ku leeyahay xoolaha ilaaha bixiya magac inuu kaa haro ayaa kuu rabo sharaf inaad ku dhimato ayaa kuu reeb waxaana qabta diinta islaamkaa qabta sharafnimada iyo xalaasha iyo magacaadooda aad ilaashato aayado qur-aan ayaa kusoo degtay may fahanteen maantay in nala adeegsado oo raggii hawiye ugu waaweynaa la yidhaaho 7,000 iyo 8,000 baa inala siinahaya horta anigu indha caddaan huba indha cadde lacag ugama baahna maxamed cabdullaahi farmaajo iyo baranbaradiisaba farmaajo baranbarada uraysuu ka liitaa anaa runta inii sheegaya isgam waa baxayaa farmaajo waa killer waa criminal maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu cunay soomaali badan intuu joogo waana kula xisaabtamayna diinta nabi maxamed oo airportka ankay ka dhoofeen wuxuu yidhi aan iscasile hadda sanadkan dhexdiisa aan iscasile ama wax la ii qabsan yes waa lagu qabsanaya bal haddaad xiniya leedahay oo iska kaaya celin kartid bannaanka u soo bax eletrayna wallahi inayna ayakoo nool muqdisho ayna ka duuleen waxaan inii sheegayaa ciddiina hawiye oo kacdoonka ku jira oo ma aragtay badbaadada waddanka ku jira oo ma aragtay soomaaliya badbaadadeeda iyo dowladnimadeeda iyo calankeeda iyo sharafta soomaaliya ay leedahay magaca soomaaliyeed ilaalinahaya waxaan leeyahay hal nin oo ilitreya yuuna ka bixin asoo nool boqol ha la iskugu duugo markaad dishaan boqol waa inay iskugu duugtaan sababtay u yimaadeen garan mayna annagu waa dadka foollada soomaaliya ka wada oo asaga la taliya oo dhulkoodu baaba'ya oo baahidu dishay oo inay wax gumaystaan maahe sharaf aana lahayn inay shacabkooda iyo dadkooda iyo waddankooda iyo calankooda ay ku ictiraafaan farmaajo calanka buluuga inuu baabi'iyo ayuu ugu talagalay calanka buluuga wuxuu damcay inuu annaka noo saaro calan xabashi waxaan leeyahay banaanbuxu ma kale istaagahayo farmaajo xaaruu ku fadhiyaa lagamnana harahayo nin allaale iyo ninka iskaga dhiga xabadana waa lagu dhufanahaya waana la dilahaya ninkaana maanta ka cararin waxay ahayd couple weeks ago markaan idhahaya dadkii nacaloolaha waaweyn oo baasaboorada ajnabiga wata oo lagu masruufa hoteelada diinta nabi maxamed airportka aada ka bixin kulli responsible aad ka tihiin waxa ka dhacay soomaaliya oo dhan kulli raalli baad ka ahaydeen halkaasaad ka caytamayseen sida ugaaska mareexaan oo la sheegahayo oo baktiga waa bakti cabdullaahi yuusuf oo wax ka sheegahaya bal adigu is arag cabdullaahi yuusuf maxaa ka sheegaysaa waqti xun oo kullo cabdullaahi yuusuf la soo kulmay waa ognahay wuxuu sameeyey laakiin maxaa ka sheegaysaa maad aragtid kan aad u doodaysid farmaajo wax waddanka ka sameeyey ya oo etoobiya oo dabada ka galay
oo Ethiopia waddankeena ay baabiisay oo Ethiopia gabdhaheennii koonfur galbeed ay kufsatay oo Ethiopia waxaan arkay ay ka samaysay diyaaradaha koonfur galbeed kusoo riday gargaarka waday waryahoy waxaan ku leeyahay oday waxaa tahay rabashaa tahay rabash baranbaraa tahay adoo kale cayayaanka noocaadoo kaleana lugta inta madaxa laga saaraa la jibiyaa iyo dhisani waa la jibiyaa adoo kaleeto waxaan leeyahayna caadaqaatayaasha heesaayana we know waxay yihiin waa weligood baxaaraan cunayaal waa dadka qayila waa dadka nolosha ka dhacay waa dadka khamriga caba ciddaas iyo faamiligaas iyo waxa lamid oo dhan oo London joogo oo dhan wada same waxay isdhaamaan male may fahamtay waa naadeer walaalo waxay isdhaamaan male Soomaaliya ha noolaato هلا دايو قللا صدا لكن فرماجة أنا إسكقبنا فرماجة وكل جتالية أنا كليه وحبا إيه مسامين على كبلوجا يعيد الصوماليات أيوه وحو كان ورياضة بدني يا دتك كل إري قرصورين محكمة دي يبري ناكتي دودي يسمى محكمة دفع إذا إيسي جي يبري فرماجة يبري إنه سياسة قصة أيوه دمعي وأنا إثيوبيا نو مو إثيوبيا قاد كذا أنا ولا حرايا نو مو مشين قاعدة كم إيمانيسو أم بربس إن أنا كإيمان regular أيضا شعب وده هذا مشين قاعد يسوق جلسوا ديار إثيوبيا صوماليا ولا بيجوا جناية waxa ay dabada ka wado iyo ninkaan aqliga lahayn oo calanka iyo ciidda qiyaamaha iyo oo Ethiopia looga taliyo am so sorry Allah ha loo kaco calanka iyo ciidda ha loo kaco magacnimada Soomaaliya kelmadda magaca Soomaaliya waa in loo kaca oo qarannimada Soomaaliyeed iyo dhibaatadii arkay iyo dagaalkii sokeeye aan ka hortagnaa farmaajo iyo waxa la mid oo dhan waa in aan ka hortagnaa oo rikaatada gelinahay dawladda waa in aan ka hortagnaa Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud oo caynahay intuu idaacadaha fadhiisto yaa waxdahay ما أركتني وياه عينها يوجوابها هي ما أنتنا مريحان حاك يشوفن كيا كسعدة بلا لا 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 أيك عيتم هاي يا شال حسن شيخ محمد مدحونا ما فرماش مركو ستة سنة كي كعاية هي وحمر نحدد الله وكود المظاهرات ننها وياه هو استاج ماركتين نعيد له هو استاج ماركتين وريا وكاب هوية وكاب قف اللود اللي هي والنقالي سلقتها جري الصقي يحسكي سسين معلن وعد هوية gabar dambo hawiyo la kufsanayay ma jirto runta ay sheegay haddaan laga dhiidhinin oo ninkii gabadha bistoolada madaxa ka saareen aan la soo qabanin oo aan la dilinin oo horta hore raali gelin markuu bixiyo waa inaan ka takhalusnaa aaron keer hadduu hawiyo yahay hadduu habar gidir yahay hadduu sacad yahay in adeertiis buu bistoolad madaxa ka saaray waqaa'ilul wadan calooshiis u shaqaystaa dadka xaaraanta cuno kale sida kaasoo kale shuluqsan yihiin waa dhibaatada uu rabo inuu ka sameeyo Puntland Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caada qaatayaasha isqarinayo carruurta soo adeegsanaya banaanka u soo baxaa daxmiye leediin reeb Puntland la hadlaya ya nimanka lacagta farmaajo soo siiyay oo ilmaha dhalinyarada oo masaakiinta adeegsanaya oo miishaarta u dhiibay banaanka u soo bax xiniya loo baahanay xiniyo ma hadda gadaashiisa ugu dhumanaysan ilmaha yaryar oo adeegsanaysan ragga noocaas oo kaleeto waa inaan qabanaa wallahi waa inaan sida ukunta intaan gacanta ku qabanaa dhash ka siinaa hal mar taasaan in leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya mudaharaadyada ka dhacaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka bixi ma la airport anana idin sheegay geed ay Uganda isleeyihiin gelima nin daafacaya male dhibaatada Soomaaliya ka socotana asaa ka dambeeya waxaan leeyahay aad ay salaamaya programka hala share gareeyo subscribe ugu dadaalo waxba inuu kuma fadhiyo subscribe hala saaro commentigiina oonan caay ahayna waa inaad saartaan Farmaajo waa shakhsi waana gatay calanka iyo ciido gatay dawladnimada Soomaaliyeed oo meel uga dhacay mana laga harhayo maca hadduu madaxweynenimo ka degto farmaajo laga hadli maayo historigana buugga baajinka madow uu ka gelaya maxkamadna waa la istaajinaya programka hala share gareeyo isgaarsiiya subscribe saara commentiga saara followga saara subscribe waxba inuu kuma fadhiyo furta ee abosta atiin aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa Soomaaliya ha noolaato